ولا ليال waxaynu isku dhiirigelinaynaa wax bixinta bisha Ramadaan waa bil baahiduna aad u badan tahay duruufta dadkeena iyo dalkeenana aynu ognahay miraaran wa tikraaran mariya labiya ka badan baynaynu isku celcelino way waxaynu ka hadlaynaa laba arrimood sadaqada fadligeeda iyo faa'iidadeeda way kala duwan tahay sadaqadaas iyo sunno iyo faralba way leedahay qof waliba waxa ugu badan ee ka go'ay karu bixin karu ku dadaalaya waliba waqtiga fadliga badan iyo ciida baahidu ku sii badan tahay in loo dadaalo waynu soo aragnay daliilo dhowr ah oo aynu soo akhrinay waxa uu ka warramayaa ibn qayyim rahimahullah dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam si aynu ugu dayano kol gaari meeyne nabigu sifooyinkiisii sharxayo waxa uu wa kaana al-ataa wa sadaqatu ahabba shay'in ilayhi nabi maxamed waxyaabo aad u jeclaa waxa kamid ah wax bixin wa kaana sururuhu wa farahu bima yu'tihi a'zama min sururi al-akhidh bima ya'khudhu qofka waxa la siinaya intuu jecel yahay in ka badan ayuu nabigu jeclaa waayo wuxuu og yahay inuu isagu badsanayo faa'iidada dabayl la diray uu ka sii uga degdeg badnaa deeqda waliba waqtiga bisha Ramadaan marka hadiya jeer qof baahani uu yimaado athara ala nafsihi wa taratan bid'aami wa taratan billibaas qofka naftiisu uga doori jiray oo naftiisa shayga u baahan dariya dhuuniba ayuu qofka ku horeysiin jiray wayuthiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaas oo way dhacday inuu mararka qaarkood dadkii wax u baahnaa raashinkeena siiya way dhacday mararka qaarkood inuu nin caashaqay labisku xidhnaa intuu guriga tagu u soo laablaabay waxay naga suuro gali kara maaha macawistaadaas way wanaagsan tahay jawaabaan kugu wanaajin doonaa isagii buu siiyeyba rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad bay naftiisu ugu raaxaysan jirtay shayga uu bixinayo halka inaga ay ku adagta ciriiriga aynu dareeno wawajadaka caa'ila faghna ilaahay baa wuxuu adigoo faqiiru rabbi ku helo qani buu ka dhigay qaninimada meelaha ugu sarreeyay gaaro al-istighnaa 'anil maal la bil maal qannimada mar waxaynu inuu ka raadinaa xoolaha inaynu ururino laakiin isagu wuxuu ka raadinayay inuu ka maarmo asxaabta uu la hadlayo waxa uu ma yasurruni anna li ahadan dhahab anna li uhudan dhahaban ta'ti alayya thalath wa 'indi minhu dinar illa dinarun arsuduhu lidaynin alay anigu kuma farxiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam illa idiba buurtan uhud wax leego dahaba waa buur weyn oo madiina agteeda kadibna uu agtayda ku soo haragini hadii dadka wax maamula ay ku dadaalaan intuu mansabka hayo inuu kabaha ka subkado waxaad u urursado awraa inaad ku soo noqon la garanay ku ka gaarsi isagu nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxa aan haye buurta uhud la eg ee dahaba ma jecleenu hal gini ama hal shilin igu soo haro oo gabalku igu dhaco ilaa mid aan u kaydinayo mooyaane deyntu waa musiibo marka wixii aan deyn ku bixinay waan dib dhigi karaa laakiin wixii kale waan kala diraya waxa la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayu sadaqati a'zam waa su'aal inagu matalan asxaabtu allah ka raali noqdo waxa la bixinaya dhiiri galise maxaa u weyn u fadli badan ama sadaqadu waqtigeeda u fiican ونوت المام النبي وحول إن أنت صدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وقت هذا أفي عنتها وحول وقت نفتك وأرقتها وأمرك العافية ما رقبته اتبهاش مالك على سنة يسو اتكعب سنة يسين أدعي له ددنا هيك سنة يساد سلاد هبل قاعد درين كنا عاصي مركو تشرا قفك اسكفو تشيا كاسا أي صدقدي سفضل بدن تايو الرسول صلى الله عليه وسلم وصير بدأوا بدن وقفك وحسلا شيطان كوحو كورين تنهداد بحساب وسارت بحسك تشرا وحلقوا كلا حرين هنا ده سيا وحسوكا قبام بموتشي وكلا كعي انت رسكهاي
waxaasuu ku akhriyaya kii laynagu saliday naftiina way iska caafimaad qabtaa qofku markuu cuduraysan yahay had iyo jeer waa ka nebigu sheega wuxuu uhi walaa tumhil xataa idaa balaqat ilxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada alaa waqad kaana lifulaan war bahashaa dib ha u dhigina buui waxaa bixinaysaa dib ha u dhigina ilaa ay naftu soo gaadho halkan kalxamaha oo sakaraadku kugu adkaado halkaa markay gaadhaabaad ayaad kala badbadan doontaa ama aada odhan doontaa intaa hebel hala siiyo intaa hala siiyo intaa fulaan hala siiyo arhooyaa hebelkaasina isagaaba yeesha waa mid dhaxal ku qaadan doona u leey intaa hala siiyo abaal laguma qabo waqtigaase ka gaadhsii buu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waa taladii weyneyd buu nebigu ina siinayaa calayhi salaatu wasalaam markaa qofka wixiisu waa inay qorshaysnaadaan wuxuu bixinayo maalintii bishii sanadkii cimrigiisa waa inay tartiibsan yihiin iyo wuxuu carruurta uga tegayaba sadaqada fadligeeda iyo faa'iidadeeda waxaa ka mid a haddii sadaqadaas ilaahay daraaddii ay to maal xalaala ay tahay adcaafteedu way sii badanaysaa intuu ilaahay laablaabaya aad bay usii badanaysa markaa bal ka fiirsa waxaad bixinayso nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi abi hurayrata man tasadaqa bicidli tamratin min kasbin dayibin walaa yaqbalu allahu ila dayib qofka wax ka bixiya xoolaha xalaasha ah ilaahayna xalaalunbuu aqbalaaya ila haddaad xaaraan ururiso waad xiiqday dembina wuu ku fuulay markaa qofka xalaal bixiya buu nebigu yihi fa ina allaha yataqabaluha biyamiinihi uma yurabbiha lisaaxibiha ilaahay midigtiisuu kaga guddoomayaayo sadaqadan qofkan wuu kobcinaya wuu badinaya kamaa yurabbi axadukum fuluwahu xataa takuuna midla aljabal faraskiisa yar siduu qofku u koriyo ee u naaxiyo ee si uu gaadiid ugu noqdo oo fuulaha dhow buur bay leegaanaysaa buu nebigu sadaqadaas marka maalinta qiyaamaha unbuu qofkii eegayaa wuxuu odhanayaa kana xaggaan ka helay waa sadaqadii nooca ahayd sida wanaagsan u bixisay kana xaggaan ka helay waa sadaqadii nooca ahayd u farxayaa maalintaa qofka idan markaa wuxuu shayga muhiimka ahi waxa weeyaan waa tayada shayga tirada ma aha tayadaa muhiima innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin faa'iidooyinkeeda waxaa ka mida dembigan ina dhibay aynu la roorayno sadaqada ilaahay inaga reebaya subxaana wa tacaala waxyaabaha ilaahay uu dembiga ku dhaafo aadka inoogu dhib badan waxaa ka mida sadaqada nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal wuxuu ku yihi alaa adulluka calaa abwaabi alkhayr albaabada khayrka laga gala ma ku tusiyaa si aad jaaniska uga faa'idaysata cimriga alsadaqatu junnatun alsawmu junnatun wasadaqatu tudfiu alkhati'ata kamaa yudfiu almaau nnaar soomku waa gaashaan buuli allah inaga aqbalo oo cibaadada aynu iminka ku kabayna sadaqada waynu sooma nahay marka soomku naarta iyo xumaanta intaba gaashaan buu ka yahay shaydaanka naarta xumaanta intaba gaashaan buu ka yahay sadaqaduna waxay u baktiisaa waxaan la yidhaahdo dembiga sida uu dabku u baktiyo biyaha dab baxaya haddii biyo lagu shubo iska baktiyaa markaa waxaan kugu baxaya ku kululaynaya noloshaada iyo cimrigaaga iyo raaxadaada iyo dalkaaga iyo dunyadaada kululeeya ee dembiga ah sadaqadaa lagu qaboojinaya waa nusuustii baynu ku jirnaa fadliga iyo faa'iidada ka warramayay faa'iidada waxaa ka mid a namaa-ul maali wa ziyaadatu xooluhu inay ku kobcayaan waxaanaynu bixinayno way ku badanayaan isagaa nabigu caddeeye calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maa naqasat sadaqatun min maal xadiidkii muslim ku sugnaa sadaqadu xoolaha waxba kama yarayso haddaad u aragta muuqaal ahaan inay dhimantay macnawiyan bay xoolihii u kordhayaan oo way barakoobayaan wuxuu ilaahay ku barakeeyaabaana ku xisaabtan leh oo gundhig yeelanaya faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a istidlaalu lmu'mini fii dilli sadaqati yowma alqiyaama maalin dadkuba aada u baahi badan yahay baad harsanaysa oo dadkuba iska kadeedan yihiin oo ay kulul yihiin oo qorax la soo dhaweeyay oo dadku ilaahay u hadhaynaya saad garanayso waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu qof wixii uu bixinaya aada u qariyay oo dadkii u baahnaa siiyey iyo meeshii ku habboonay